dadweynaha ku nool caasimadda Soomaaliland Hargeysa ayaa saaka hirtu waa bari isugu soo baxay soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo dalka dib ugu soo noqonaya isla maanta madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa ka soo ambabaxay dalka Mareykanka oo halkaasi u joogay muddooyinkii ugu dambeeyay ictiraaf raadinta iyo aqoonsiga Soomaaliland dadweynahan ku sugnaa wadada u dhaxaysa madaxtooyada ilaa iyo madaarka ayaa waxay leeyihiin calanka Soomaaliland iyo calaamad weyn ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u qodobay dareenkooda ku aadan soo dhaweynta madaxweynaha waxaana hadalladooda ka mid ahaa waanu soo dhaweynaynaa madaxweynaha qaranka ee guusha ballaaran sida ee horseedka sida ma sha Allah baanu leenahay guul waa noo guul adoogu hajabo waanu guulaysanay guul buu noo sida ma sha Allah Muuse Biixi Cabdi soo dhawow baan leenahay soo dhawow baanu leenahay xamarna waan kala hadnay baasaboorkayga meel walba waa lagaga dagay aqoonsigu waa baasaboorka soo dhawow baanu leenahay madaxweynaha dalka Soomaaliland waxa la ku soo dhawow qarankaagii dalkaagii dadkaagii ku sugaya qaranimada Soomaaliland waa mid muqadas ah oo cidna loo hoos fidin marka madaxweynaha waxa la ku soo dhawow dalkaagii dadkaagii ku sugaya madaxweynaha dareenkaaga ka waran maanta dareenkayga waa shucuurtayda maanta lama soo koobi karo aad iyo aad baan faraxsanahay madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay shirar caalamiya ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu go'aan guul ka soo saaro go'aamada la horgeeyay aqalka cad baarlamaankiisa waxaan rajaynayaa inay guul ka soo baxdo insha Allah waxa la mujaahid Saacid Cabdi maanta waa maalin weyn aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay guusha uu soo yeeyay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan u qeyrasanahay farxadadu aad lama soo koobi karo marka Soomaaliya jooro waxa leenahay ku quusta waa guul baan leeyahay kadalada quudiyadeega ururka gobonimo waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha Soomaaliland waan ku faraxsanahay guul buu sidaa anigoo xilbas xardiid cawada waxaan aad ugu faraxsanahay yoomkan maanta madaxweynaha yaga Muuse oo guusha sida gacmo furan baan ku soo dhaweynayaa farxka waxaan ka salaamayaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Soomaaliland oo dhan wafdida la socota waxaan leeyahay sama ku soo deg nabadgelyo ku soo deg calanka Soomaaliland waa muqadas Soomaaliland xornimadeedu waa muqadas anigu magacaygu yahay Raxme Ismaaciil Geedi maanta waxaan halkan u soo baxnay shucuurtayada inaan la qaybsano madaxweynaha iyaga jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland dal iyo dibadda meesha joogaan waxaan heegan u nahay inaan soo dhaweyno gacmo furan ku soo dhaweyno madaxweynaha iyaga maadaama halgan weyn uu soo galay waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii ayaa ku heegana ku garab jooga anagoo waxaanu leenahay soo dhawow cadaadaadan ku taaganay magacaygu waa Hoode Xamdi Axmed waxaan halka u taaganahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu soo dhaweyno madaxweynuhu soo hooyay guulo badan oo 30 sanadood sugaynay waxaan leenahay madaxweyne guulayso Soomaaliland socodsay kala soconay xamar anagoo dalada suuqa gobonimo oo quudiyadeega waxaanu soo dhaweynaynaa oo si fiican oo farxad iyo reeyreyn ugu soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyaga Soomaaliland anagoo faraxsan oo farxad la qaybsanayna oo guushu noo jiro ku faraxsan ayaanu soo dhaweynaynaa soo dhawow baan leenahay madaxweyne dhammaan ummadda Soomaaliland meel walay joogaanba dibadda gudo dalka oo dhan iyo dadweynaha caasimadda qalbiga iyo niyadda aad ugu soo dhaweyseen dal jacaylkiina iyo ilaalinta qarnimada ilaalinaysaan haddii aanu wafdiga nahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa walaalayaal waxaanu la soo noqonnay warsan iyo weersan dadka Soomaaliland iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta xaqa u hiilisa safarkani wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda gali doona cadawga Soomaalilandna wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyey oo ka nixiyey walaalayaal haddii in badan oo aynu soo halgabaynay iyo sanado badan oo aynu halgan naf iyo maalba soo horay iyo sanado badan oo aynu dalka dhisaynay oo aynu dadkeena nabadaynay
iyo sanado badan oo inta dalka dhisnay wixii dowladnimo wax badan dhinaayeen oo dadkeenna u adkaysanayey oo qof walo Soomaaliya qurbaha joogo ama dalka ha joogo u dhawaad adeegayay maanta waxaan idinku bushaaraynayaa shalay haddii dadka qaarkii ama dowladaha waaweyn super powerkii ay dhahay naga leeyihiin dowladdii adduunka ugu weyn inay maanta inay noo soo jeedaan oo daydayso idina goobjoog maqanagihiina way maqlayeen araggiina uu arkayo wixii ka dhacayay dalka Maraykanka walaalayaal shalay haddii hadalkeena aan aad loo dhageysanayn oo dhagaha cadowgeenu uu ka haystay dowladaha waaweyn maanta waxaad arkayseen iyada oo dhagaha dowladda Maraykanku ay aad u raaracayeen oo dhagaysanayaan codka Soomaaliland iyo dareenkooda walaalayaal hadday dad badan awal hore odhan jireen waxyaalaha dabayshu xagganayna haysaa waxba inaga siya waxaan idinku bushaaranayaa maanta dabayshu inay dhabarka inaga hayso inay riixayso oo leedahay hore u socda guushu way dhowdahay walaalayaal waa arkayseen waxaan idinka maqnayn muddo dhowr toban cisho ah 2 cisho 3 cisho la socday dhexda lagu jiray mooyaane intii kaleenu hawl gallay waxaanu gallay 23 shir oo aanu la gallay waxyaha kala duwan ee dowladda Maraykanka iyo baayac mushtarkooda iyo jaamacadahooda iyo macahadooda baarista iyo hal shir oo jimcada qurba ka dhaxayso New York ahaa intaa waxaa noo dheeraa intaa in ka yareen oo habeen iyo maalin ah oo ugu badaayeen dadkii Soomaaliland jeclaa u halgamay ee qurba joogga ahaa oo meelo badan isaga yimid gaar ahaan dalka Maraykanka dhammaan isaga yimid iyo Canada iyo qaar waliba meelo kale ka soo duubay intaa dhowr cashan ka maqnayn gabal iyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalay naftu jeclaysanaysaa wadi waxaa dhageysanayseen oo aragteen maanta dowladda Maraykanka oo dowladdeedu ay aanu ku wada hadlaynay dalka Soomaaliland iyo wuxuu soo maray waqtigii arna goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareeneen naga sugayaan maanta waa ictiraaf oo qura bariyadu kuma naaliman waxna sideedu kuma naaliman na taageeradu kuma naaliman inta baan laga dhisanay ummadaasi xaq waxa uu dowladii qaranka weyn baa tiinay ictiraaf nagamana diidana waxay yiraahdeen maanta ay suuqeen horeysa wax walibana wuxuu koow iyo laba iyo talaabo loo diyaar garoobo hawlahaas ay wadamada waxaanu sa diyaar u nahay inaanu wax wal oo labadooda qabsaanba ila qabsano annagoo karaama iyo ixtiraam oo qadarina inaynu wadaagno wax walba oo ka mid yihiin koow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga bariga iyo badaba tahay hadday mushtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inagoo labadooda isqadarinaya inaynu wadagalno oo hawsheedii bilowno oo aynu qalliga warqad qaadano oo dowladda soo jira loo bilaabo maanta se waxaan idinku yeernay inaanu albaabkeedii furno oonu u baahannahay inaanu iskaashano haddii loo dowladnahay taasaanu idiin sidaa oo idina arkaysay walaalayaal waxaa goobjoogta inoo wada haysaan telefoonada iyo internetka wada ku haysaan in dowladda Maraykanka labadeeda golo baarlamaan senatorska iyo kongareesku ay laba sharci oo ku farayaan dowladda in degdeg Soomaaliland loola qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dowladda waxaa arkayseen xeerar ama fariimo loo diraayo oo golayaasha Maraykanka ugu dirayaan muddadii aanu joognay in ay dowladda arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato hawlgasha Soomaaliland iyo warcidda u soo maraynin waana tallaabo maanta inoo koowa iyo albaab inoo furmay waxaanu idiin sidnaa oo aanu ka soo celinay caalamka maanta shirkeeni iyo shirkaanu ku jiray iyo fariintii qarankana noo dhiibay ee dastuurkuna faray ee qaranku noo yimid qadiidada gaarsiiya ummada waliba meelaha ugu waaweyn jimcada qurba ka dhaxaysa Maraykanka in maanta intaanu geynay waliba miidiyaha Maraykankuna aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla laga dhageystay iyo dal walba oo adduunkaaba oo ay gaarsiiyeen miidiyaha Maraykanka walaalayaal iyadoo ayadu kulushahay idinkoo wararka intiisu badal hayay waxaanu maanta inoo sidnaa
inuu inoo furmay xiriir cusub oo bilow ah oo laakiin dawlad iyo dad bay nooga baahan hawl badan maraykanku iyo dadkaan dhegaysanaya intaasoo loo sameeyey shir iyo faasilita maxay noo qadarinayeen annagu ashkhaas baanu ahay waxay qadarinayeen shacabka somaliland meeluu joogo gudo iyo dibadba iyo halganka ay soo galeen iyo dalka ay dhisteen iyo tala wadaagga iyo dimuqraadiyaddooda iyo inay madaxdooda doortaan iyo inay wixii gudadaa khilaafkooda xaliyaan oo u dhabar adeegeen duruufaha adag ee haysta qadarintaad ku mutaysateen hawshaa aynu soo gallay ee shicbigoo dhan bay ku mutaystay ayaa laynagu qadarinayay oo annagana nagu ixtiraamayay idinka laydinku qadariyaa laydinku joogay waxaynu u baahannahay inaynu halkaa ka sii wadno maanta meel ilaahay lagu mahadiyaa baynu joognaa waxaynu caalamka oo dhamme maanta dal kasta iyo af kasta laga dhegaysta oo laga hadlayaa qadiyadda somalilan waxa ku xiga iyada oo ictiraafka inoo muuqda maanta maalintii hore halkan aad ku imid ee aan kuna kale ka imid ee cilaaqaadka qolada xamaroogeysa waxaynu ka ballan qaaday halkan ay ahayd halkan aynu taagnay inagu waynu wadaynaa adduunka dawlad walba og tegaynaa caalamka oo dhan tu walba og tegaynaa qadiyadda horeeganaa iyaguna mid walba cilaaqaadka u jireen maantana maraykanka u jireen hadday ku dhacayaan keni waa kuu jirayey aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa warka intaasaan kusoo koobi waa cadceed dad badanoo waynaga horreeyaa waa mahadsantihiin hawshaad ku timaadeen waxaa inoo ballana somaliland aynu hawsheeda iyo dhismaheeda wadno dadkeenna oo walaadamo gacmaha isqabsada innaga oo qadiyaddeenna u dhabardeegantayana hadhay qof waliba dhibaatadu qaba isaga oo qaranka hormariyatiisa ayaa inoo ballana aad iyo aad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa yaasir axmed cabdilaahi yaasashka iyo mustafe telefishinka magaalada hargeysa halkan aan ku sugannahay waa madaarka caalamiga cigaal international airport goordhoweed ayaa uu madaxweyne muuse biixi cabdi safarkii uu muddada dhowr iyo 10 maalmood ahaa ee uu ku maqnaa dalka maraykanka ah uu dalka dib ugu soo laabtay madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa markii uu dalka dib ugu soo laabtay waxa uu warbaahinta iyo qaybaha kala duwan ee ka soo qayb gashay soo dhowayntiisa uu kula hadlay stagekaasi madaxweyne muuse biixi cabdi waxa uu ka warbixiyey kulamadii kala duwanaa ay wada qaateen mas-uuliyiinta dalkaasi maraykanka isagoo oona dhaliilo kala duwan u jeediyey xukuumadda federaalka soomaaliya madaxweyne muuse biixi cabdi oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi dhammaan ummadda somalilan meel walay joogaanba dibadiiyo gudo dalka oo dhan iyo dadweynaha caasimadda qalbiga iyo niyadda aad nagu soo dhowayseen daljacaylkiinna iyo ilaalinta aqarnimada ilaalinaysaan haddii aanu wafdiga nahay aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa walaalayaal waxaannu la soo noqonnay warsan iyo weedhsan dadka somalilan iyo inta somalilan jecel iyo inta xaqa u hiilisa safarkani wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda geli doona cadowga somalilandna wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyey oo ka nixiyey walaalayaal haddii in badan oynu soo halgamaynay iyo sannado badan oynu halgan naf iyo maalbaa soo hurray iyo sannado badan oynu dalka dhisaynay oo aynu dadkeenna nabadaynaynay iyo sannado badan oo aynu dalka dhisnay wixii dowladnimo wax badan dhinaayeen oo dadkeenna u adkaysanayey oo qof walo somalilandna qurbaha joogo ama dalka ha jooga u dhowal adeegayey maanta waxaan idinku bushaaraynayaa shalay haddii dadka qaarkii ama dowladaha waaweyn ee subar bawarkii ay indhaha naga labinayeen dowladdii adduunka ugu weyneed indhahaynu maanta inay noo soo jeedaan oo ina daydayso idina goobjoog maqadhagihiinna way maqlayeen araggiinna uu arkayo wixii ka dhacayey dalka maraykanka walaalayaal shalay haddii hadalkeenna aan aad loo dhegaysanayn oo dhagaha cadowgeennu uu ka haystay dowladaha waaweyn maanta waxaad arkayseen iyada oo dhagaha dowladda maraykanku ay aad u raaricaysiin oo dhegaysanayaan codka somalilan iyo dareenkooda walaalayaal hadday dad badani awal hore odhan jireen waxyaalaha dabayshu xagganayna haysaa waxbaa inaga siya
waxaan idinku bishaaranayaa maanta dabayshu inay dabdhabarka inaga hayso ina riixayso oo leedahay hore u socda guushu way dhowdahay walaalayaal waa arkayseen waxaan idinka maqnayn muddo dhowr toban cisho ah 2 cisho 3 cisho la socday dhexda lagu jiray mooyaane intii kale aanu hawl gallay waxaanu gallay 23 shir oo aanu la gallay waxyaha kala duwan ee dowladda maraykanka iyo baayac mushtarkooda iyo jaamacadahooda iyo machadadooda baarista iyo hal shir oo jimcadda qurba ka dhaxayso New York ahaa intaa waxaa noo dheeraa intaa inka yarayn oo habeen iyo maalin ah oo ugu badaayeen dadkii Soomaaliland jeclaa u halgamay ee qurba joogga ahaa oo meelo badan isaga yimid gaar ahaan dalka maraykanka dhammaan isaga yimid iyo Canada iyo qaar waliba meelo kale ka soo duubay intaa dhowr tobanka casharad ka maqnayn gabal iyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalane naftu jeclaysanaysaan wadi waxaad dhegaysanayseen oo aragteen maanta dowladda maraykanka oo dowladdeedu aanu ku wada hadlaynay dalka Somaliland iyo wixii soo maray waa ogtihiin arna goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareeneen naga sugayaan maanta waa ictiraaf oo qura bariyeedu kuma naaniman waxna sideedu kuma naaniman na taageeradu kuma naaniman inta baan laga dhisanay ummadaasi xaq waxa uu dowladda qaranka ugu weyn baa tiinay ictiraaf nagamana diidana waxay yiraahdeen maanta ay suuqeen horeysa wax walibana wuxuu koow iyo laba iyo talaabo loo diyaar garoobo hawlahaas ay loo dameeyay waxaanu sa diyaar u nahay inaanu wax wal oo labadooda qabsaanba ila qabsano annagoo karaama iyo ixtiraam oo qadarina inaynu wadaagno wax walba oo ka mid yihiin koow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga bariga iyo badaba tahay hadday mushtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inagoo labadooda isqadarinaya inaynu wadagalno oo hawsheedii bilowno oo aynu qaliyo warqad qaadano oo dowladda soo jira loo bilaabo maanta se waxaan idinku yeernay inaanu albaabkeedii furno oonu u baahannahay inaanu iskaashano haddii loo dowladnahay taasaanu idiin sidaa oo idina arkaysay walaalayaal waxaad goobjoogta inoo wada haysaan telefoonada iyo internetka waa ku haysaan in dowladda maraykanka labadeeda golo baarlamaan senatorska iyo kongareesku ay laba sharci oo ku farayaan dowladda in degdeg Somaliland wax loola qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dowladda waxaa arkayseen xeerar ama fariimo loo diraayo oo golayaasha maraykanka ugu dirayaan muddadii yar aanu joognay in ay dowladda arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato oo hawlgasho Somaliland iyo war cidda u soo maraynin waana tallaabo maanta inoo koowa iyo albaab inoo furmay waxaanu idiin sidnaa oo aanu ka soo celinay caalamka maanta shirkeeni iyo shirkaanu ku jiray iyo fariintii qarankana noo dhiibay ee dastuurkuna faray ee qaranku noo yimid qadiyadda gaarsiiya ummada waliba meelaha ugu waaweyn jimcada qurba ka dhaxaysa maraykanka in maanta intaanu geynay waliba miidiyaha maraykankuna aanay ka warwareegine maanta af kasta oo adduunka lagu hadla laga dhageystay iyo dal walba oo adduunkaaba oo ay gaarsiiyeen miidiyaha maraykanka walaalayaal iyadoo cayadu kulushahay idinkoo wararka intiisu badahayay waxaanu maanta inoo sidnaa inuu inoo furmay xiriir cusub oo bilow ah oo laakiin dowlad iyo dad bay nooga baahan hawl badan maraykanku iyo dadkaan dhegaysanaya intaasoo loo sameeyey shir iyo fasilita maxay noo qadarinayeen annagu ashkhaas baanu ahay waxay qadarinayeen shacabka Somaliland meelu joogo gudaha iyo dibadba iyo halganka ay soo galeen iyo dalka ay dhisteen iyo tala wadaagga iyo dimuqraadiyadooda iyo inay madaxdooda doortaan iyo inay wixii gudaha khilaafkooda xaliyaan oo u dhabar adeegeen duruufaha adag ee haysta qadarintaa ku mutaysateen hawsha aynu soo galnay ee shicbiga oo dhan ku mutaystay ayaa la nagu qadarinayay oo annaga nagu ixtiraamayay idinka la isku qadariyaa la isku joogay waxaanu u baahannahay inaanu halkaa ka sii wadno maanta meel ilaahay lagu mahadiyaa baynu joognaa waxaynu caalamka oo dhamme maanta dal kasta iyo af kasta
laga dhegaysto laga hadlayaa qadiyadda somalilan waxa ku xiga iyada oo ictiraafka inoo muuqda maanta maalintii hore halkan aad ku imid ee aan kuna kale ka imid ee cilaaqaadka qolada xamareegaysa waxaynu ka balan qaaday halkan ay ahayd halkan aynu taagnay inagu waynu wadaynaa adduunka dowlad walba og tegaynaa caalamka oo dhan tu walba og tegaynaa qadiyadda horeegaynaa iyaguna mid walba cilaaqaadka u jireen maantana maraykanka u jireen hadday ku dhacayaan keni waa kuu jirayey aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa warka intaasaan kusoo koobi waa cadceed dad badanoo weynaga horreeyaa waa mahadsantihiin hawshaa ku timaadeen waxaa inoo ballana somaliland aynu hawsheeda iyo dhismaheeda wadno dadkeenna oo walaadamo gacmaha isqabsada innaga oo qadiyaddeenna u dhamarayanta ilaa hadhay qof waliba dhibaatadu qaba isaga oo qaranka hormariyatiisa ayaa inoo ballana aad iyo aad waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu laga baxyo rumba hadafkeenu yahay maxaa hawl laga qabyaa horaa loo soconayaaye hoosiiskii laga baxyo rumba hadafkeenu yahay maxaa hawl laga qabyaa horaa loo soconayaaye ilaaciyo waa xariir irdogla lagu socdaa haleelada loo dhashiyo horweyntaa lagu wadaa ilaaciyo waa xariir irdogla lagu socdaa haleelada loo dhashiyo horweyntaa lagu wadaa awliyo waa hadal yaro habeeniyo waa dharar hadafku waa hiisidhee hadafku waa hiigsidhee haddaan loo wada halgamine qabyada hoos laga kufaynayne nin wali hawshiisa qabanayne dalkani noqon maayo hodan qabyada hoos laga kufaynayne ani wali hawshiisa qabanayne dalkani noqon maayo hodan laga baxyo rumba hadafkeenu yahay maxaa hawl laga qabyaa horaa loo soconayaaye hoosiiskii laga baxyo rumba hadafkeenu yahay maxaa hawl laga qabyaa horaa loo soconayaaye ilaaciyo waa xariir irdogla lagu socdaa haleelada loo dhashiyo horweyntaa lagu wadaa ilaaciyo waa xariir irdogla lagu socdaa haleelada loo dhashiyo horweyntaa lagu wadaa